ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa xalay saqdi dhexe soo afjaray weerar rag hubeysan ay fiidkii hore ku qaadeen hoteelka SYL oo ku dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka ayaa waxa ka dambeeyay Al-Shabaab oo ilaa 5 dabley hubeysan ay hoteelka ku galeen qaab lug ah, iyagoo adeegsanayo xeelad ay darbiga hoteelka uga boodeen, dabadeedna ay toogasho ka bilaabeen gudaha hoteelka. Afhayeenka wasaaradda warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar ayaa sheegay in abaarihii 1 ilaa 35 daqiiqo la dilay ninkii ugu dambeeyay ee dableyda weerarka soo qaaday, waxaana uu bogaadiyay howlgalka ciidamada ammaanka ka wadeen hoteelka ee suurageliyay in saacado gudahood lagu soo afjaro. Wararka ayaa sheegaya in ilaa 5 ruux ay ku dhinteen oo uu ku jiro garsoore iyo sarkaal ka tirsan ilaalada madaxtooyada. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in dhaawac tiro kale ay jiraan. Su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sababta ay rag hubeysan ay qaab lug ah ku galeen hoteelka ammaankiisa aad loo ilaaliyo kuna dhow madaxtooyada, iyadoo dhinacyada wadooyinka laga soo galo hoteelkan ay kontaroolo ku leeyihiin ciidamada ilaaliya madaxtooyada. Weerarkii xalay ayaa ahaa kii u horeeyay ee Muqdisho ka dhaco muddo bilo ah, oo ay ciidamada ammaanka si weyn u adkeeyeen ammaanka caasimadda. Waxaase weeraradii hore uga duwanaa in Al-Shabaab markii ay weerari jireen hoteelada ama dhismayaasha dawladda ay adeegsan jireen gaadiid laga soo buuxiyay qaraxyo si ay albaabka ugu furtaan. Hase ahaatee, dableydii xalay weerartay hoteelka ayaa qaab lug ah ku galay hoteelka. Maxamuud Ismaaciil Warsame Move oo ah sarkaal ka tirsanaa ururka 6aad ilaalada madaxtooyada ee ciidamada xoogga dalka ayaa ku geeriyooday weerarkii xalay ciidamada ammaanka soo afjareen ee hoteelka SYL. Sarkaalkan ayaa ka mid ah saraakiishii u horeeyay ee ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada ee u gurmaday hoteelka SYL kadib markii ay gudaha hoteelka soo galeen rag hubeysan oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Maxamuud Ismaaciil ayaa ka qayb qaadanayay howlgalkii lagu badbaadinayay dadkii ku jiray hoteelka SYL ilaa markii dambe uu nafsadiisa u huray. Taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Cabdisalaan Guuleed ayaa sheegay in uu Maxamuud Ismaaciil uu si wanaagsan u garanayo sanadkii 2009kiina uu bartay, xilligaas oo uu ka mid ahaa ilaalada ra'iisul wasaarihii hore ee Cumar Cabdirashiid. Waxa uu sheegay inuu ahaa sarkaal caan ahaa oo si dhow ula soo shaqeeyay ra'iisul wasaarayaashii hore ee soo maray dalka. Muuqaal sanadkii hore ee 2018 la soo geliyay barta YouTube-ka ayuu Maxamuud Ismaaciil kaga soo muuqday xilli ra'iisul wasaare Khayre booqanayay magaalada Baydhabo. Waxa uu ka sheekeeyay inuu ka mid ahaa ciidamadii u horeeyay ee Baydhabo ka howlgalayay ee lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka xilligii dawladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, isla markaana dawladnimadu ka soo bilaabatay Baydhabo. magacaaga ku bilaabay aniga waxa la yiraahdaa Maxamuud Ismaaciil Warsame. maanta sharaf waxa noo ah annagoo maanta joogna Baydhabo Janaay, meeshaan wixii laga soo maray iyo markii Soomaaliya la raadinayay in la isku keeno Soomaali, meeshii laga asaasay weeye Soomaali laga asaasay ee ku jidhay mugdiga ku jidhay, ayadoo waliba Allah u naxariistay markuu yimid madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf Axmed markuu yimid halganku ka bilaabay inuu Soomaali isku keeno, maanta isku raajo gacmaha isqabsadaan, maanta midda maanta lagu fadhiyo oo maanta nin walba dalka ugu fadhiyo waa wixii aan soo marray haddaan raggaan soo marin iskuma keeneen labana yimaadeen. maantana hadda wataas miraheedii baa la guranayaa oo maanta waxaan joognaa bartii laga soo asaasay Soomaaliya la isugu keenay. halkaasna markii cadowgii halkaan ugu horeeyay iyadoo alla aqoon qof isqarxiyo naftiisa gooya ADC-da waatan meeshii maantii Cabdullaahi lagu qarxiyay. ما شاء الله. maantana annagii baa taagan oo nool. Soomaaliyana maanta iyada shirkii dib u heshiisiinta iyo amniga looga hadlayaa, laakiin magac weyn baan noogu hayaa maadaama aan hay asaasayaashii iyo soo celintii Soomaaliya. taab belma maanta waxa mugdi Soomaaliya waa ogtahay ninkii waxay tahay mid kalmaanta ogeyn waa midaan Soomaali ba ahayn beela tahay oo dadka la yiraahdo dulmalayaashii ku jira.